inta badan dadka qaba HIV-ga ee ku nool Afrika iyo Latin America waxay sheegeen in cudurku ugu bilowday kadib markii ay heleen tallaalo halka bukaan ee HIV-ga qaba waxa uu dhigmaa $10,000 sanadkii lacag ka timaada daawooyinka raadraacyada iyo cilmi baadhisyada qofka lagu sameeyo dabcan nidaamku ma rabo inaad bogsato nidaamku waxa uu rabaa inaad noolaato laakiin marnaba aanad bogsan waa maxay xiriirka ka dhaxeeya tallaalka hepatitis B-ga iyo AIDS-ka haddii ay jirto daawo shaqaynaysa yaa diiday maxaa loo joojiyay maxay uga baqayaan in dadka caadiga ah ay ogaadaan sanadkii 1991 buugga la yiraahdo Be Whole and Pale Horse ayaa soo baxay waxa uu ahaa buug aan caadi ahayn waxa qoray nin hore uga tirsanaa ciidamada sirdoonka Mareykanka William Cooper laakiin buuggu ma ahayn kaliya buug waxa uu ahaa dhambaal laga soo daabacay meel aan waxyaabaha qaar ayna ka soo bixin William Cooper waxa uu sheegay in waxa uu qoray aysan ahayn mala awaal balse ay yihiin xogo sir ah oo indhihiisa ku arkay markii uu ka shaqaynayay gudaha nidaamka sirdoonka Mareykanka waxyaabaha ku qornaa buugga waxa kamid ah dawladda Mareykanku inay si qarsoodiyaha uga shaqaysay qorshe lagu dhimayo dadka dunida in hay'adaha sida WHO iyo xitaa Navy Intelligence ay ku lug lahaayeen qorshahaas iyo in waxa ugu yaabka badan uu yahay in cudurka AIDS-ka ama HIV-ga uu ahaa cudur si gaar ah loo sameeyay gacantana lagu sameeyay loona faafiyay si ula kac ah cudurkan waxa lagu sameeyay xarunta Mareykanka ee loogu magac daray US Army Medical Research Institute of Infectious Disease ee Fort Detrick Maryland ku taala in cudurkan loo adeegsaday sidii hub qarsoodi ah oo lagu ciltiro dad gaar ah sida dadka Afrikaanka ah dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya iyo kuwa ku nool wadamada soo koraya laakiin maxaa keenay in cudur sidan u halisa badan si ula kac ah loo faafiyo waxaa la sheegay in cabsi laga qabay kororka degdega ah ee tirada dadka gaar ahaan Afrika kooxaha awoodda leh ee inay dunida maamulaan isu haysta waxay u arkeen in kheyraadka dunidu aanu ku filnayn dadka sii taraya markaas waxa la yegleelay qorshe la yiraahdo depopulation through disease oo ah in bulshada lagu dhimo xanuuno bilowgiiba cudurka waxa lagu faafiyay barnaamijyo vaccine test ah oo ah tallaalo tijaabaha oo ka dhacay Afrika Brazil dad badan ayaa la siiyay tallaal sida midka hepatitis B-ga bilowgii kaasoo la sheegay inuu xambaarsanaa HIV-ga iyo tallaalka dabaysha waxaa la tilmaamay in cudurka uu si lama filaan uga dallaacay magaalooyinkaas lagu tijaabiyay tallaalka su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xogtan loo qariyay Cooper waxa uu sheegay in haddii dadku ogaadaan in dawladahoodu ay gacanta ku leeyihiin cudurkan ba'an ay kici lahaayeen laakiin haddii lagu qariyo magaca cilmi baaris iyo waxbarasho caafimaad dadku isma weydiinayaan su'aalo waxaas intaas uu ku daray warbaahinta caafimaadka iyo sirdoonku waa 3 tiir oo hal nidaam ku wada socda hadday dhan isku maraan ay adag tahay sida wax loo shaaciyo xarunta lagu sameeyo cilmi baarisyadan ama xanuunadan gacan ku samayska ah ee lagu magacaabo Fort Detrick ee ku taala gobolka Maryland ee Mareykanka waa xarunta ugu weyn ee loo adeegsado cilmi baarista cudurrada faafa ee la sameeyo halkaas waxaa la sheegay in lagu sameeyay tijaabooyin aad u tayo sareeya oo lagu abuuray cudurro si loogu beegsado deegaano iyo dad gaar ah waxa la helay warqado kale waxayna muujinayeen barnaamijka loogu magac daray Project MK Nyomi kaasoo diiradda saarayay biological agent si qarsoodi ah loogu tijaabiyay dad aan la ogeysiin inta badan dadka qaba xanuunkan ee ku nool Afrikada iyo Latin America waxay sheegeen in cudurkan uga bilowday kadib markii ay heleen tallaalo waa maxay xiriirka ka dhaxeeya tallaalka hepatitis B iyo xanuunkan 1987 hay'adda CDC waxay bilowday barnaamij tijaabo tallaal ah oo loogu talagalay ragga wax ka daya ee ku nool New York iyo Francisco sanado yar kadib halkaas waxa ka dilaacay xanuunkaas dhowr sano kadib Afrika waxa lagu qaaday olole ballaaran oo tallaal ah kadibna cudurka ayaa si lama filaan ah uga dilaacay guud ahaan gobolka Koonfur Afrika oo ah halkii ololaha laga qaaday dabcan waxaad isweydiinaysaa waxani ma qorshe fulayba 1974 Henry Kissinger ayaa qoray document la yiraahdo National Security Study oo lagu sheegay dadka dunida oo bata inay halis ku yihiin amniga Mareykanka waxa loo baahan yahay tallaabooyin degdeg ah si loo xakameeyo kororka tirada dadka gaar ahaan Afrika Latin America iyo Asia tani waxay muujinaysaa in qorshaha dhimista dadku aanu ahayn aragti maran balse uu ahaa qorshe ku qoran dokumentiyo rasmi ah waxa la aaminsan yahay in warbaahintu qayb ka tahay daboolka tusaale warbaahinta waaweyn waxa ay diideen in ay wax ka qoraan xiriirka u dhaxeeya barnaamijyada tallaalka iyo cudurkan dad badan oo cilmi baarayaal ah ayaa la arkay iyaga oo geeridooduna ay u dhacday si lama filaan ah
kadib markay bilaabeen inay daahfuraan xiriirkan. xaqiiqdu mar walba waa ay jirtaa, su-aashuse waa yaa og yaase u hadli kara. haddii cudur halis ah la abuuray, maxaa diidaya in dawadiisa la qariyo? tan iyo 1980 kumanaan qof ayaa dhintay xanuunkan, balse waxaa jiray cilmi baarayaal kuwaasoo helay daawooyin shaqaynaya markay isku dayeen inay dunida la wadaagaana la aamusiiyey. sanadii 1993 cilmi baarayaal ka tirsan xarunta Boston Institute ee Faransiiska waxay shaaciyeen in ay heleen compound si xoog leh u yareynaya tirada xanuunkan ee dhiigga ku jirta, laakiin warbixintaasi waxaa si degdeg ah u qariyay hay'adaha Mareykanka sida FDA iyo CDC iyadoo lagu andacoonayo tijaabo ku filan lama sameeynin. mid ka mid ah baarayaashii Faransiiska ayaa lagu waayay hotel uu deganaa 3 toddobaad kadib markii uu wareysi siiyay idaacad maxalli ah. tijaabooyin hore waxay muujinayeen in bukaanada isticmaalay dawadaasi ay 85% ka fiican yihiin sidii hore, muddo koobanna ay tahay oo 6 bilood oo kaliya ay tahay. waan ogahay su'aashaas weydiinaysid waa haddii ay jirto daawo shaqaynaysa yaa diiday, yaa kaantaroolaya, maxay uga baqayaan in dadka caadiga ah ay ogaadaan? dabcan meesha ganacsi baa ka socda. daawade aan isla ogaano hay'adaha caafimaadka iyo ganacsiga daawooyinka. warbixin qarsoon oo la helay 2002 ayaa muujinaysay in shirkadaha daawooyinka sida GSK iyo Pfizer iyo Merck ay si toos ah u maalgeliyaan hay'adaha caafimaad sida FDA iyo WHO. qoraalkaas waxaa lagu sheegay haddii daawada la heli karo, macaashka waa uu baaba'aya. waxaa la sheegay in daawooyinka sida antiretroviralka ay noqdeen ilo dakhli oo ballaaran, gaar ahaan dalalka Afrika. tusaale ahaan, hal bukaan oo HIV qaba waxa uu u dhigmaa $10,000 sanadkii. lacagta ka timaada daawooyinka, raadraacyada iyo cilmi baarisyada iyo baaritaanada lagu sameeyo qofkaas, haddii bukaan kasta la daaweeyo, lacagtaas meesha waa ay ka baxaysaa. nidaamku ma rabo inaad bogsato, nidaamku waxa uu rabaa in aad noolaato, laakiin marnaba aanad ka bogsan. waxaa jira qoraallo ay sameeyeen dhakhaatiir iyo saynisyahanno laga waayay warbaahinta. mid ka mid ah waa Dr. Serbi, dhakhtarka daawooyinka dabiiciga ah isticmaali jiray oo sheegay inuu daawo u helay xanuunkan. waxa uu sheegay in qaab dabiici ah looga nadiifin karo dhiigga, lagana nadiifin karo xanuunka. Dr. Serbi waxaa lagu dacweeyay maxkamad ku taala Mareykanka, balse wuu ka guuleystay. kadib waxa uu bilaabay inuu daawadiisa si hufan u faafiyo oo uu dadka u daaweeyo ilaa uu si lama filaan ah u dhintay 2016 isagoo xidhan. dabcan shirqoolka meesha ku jira waa dareemi kartaa. qoraal sir ah oo la helay kadib geeridiisii waxa uu muujinayaa in shaqaalihii baaray kiiskan ay qirteen oo ay dhaheen waxa uu lahaa aqoon khalkhal gelin karta warshadaha daawooyinka. William Cooper waxa uu sheegay in dawada Ayriska la helay bilowgii 90-meedyadii, balse ay jiraan xeerar sir ah oo military oo mamnuucaya in dawo lagu shaaciyo cudur military ah oo la sameeyay. buuggiisii B. Hall and Bell Horse waxa uu ku qoray haddii daawada la helo lama sii dayn doono ilaa heerka la doonayo in la gaarsiiyo tirada dadka caalamka ma ahane. waxaa lagu sheegay in qorshaha ah in la yareeyo dadka aan la rabin ay weli socdaan. dawada waa la hayaa, balse waxaa la sugayaa goorta ay faa'iido badan tahay in la shaaciyo. maanta waxaa jira dad badan oo si qarsoodi ah ugu shaqeeya warshado daawooyinka sameeya, kuwaas oo qiraya in weli ay jiraan compounds shaqaynaya, balse aan la ogolayn sii deyntooda iyo shaacintooda. hay'adaha aynu rumaysannahay in ayna badbaadinayaan miyaa dhab ahaan naga ilaalinaya runta? hay'adda CIA-da ayaa leh waax u gaar ah oo loo yaqaano Directorate of Science and Technology, taas oo hormuud u ahayd mashaariicdii lagu sameynayay biological agentsiga. waxaana ka mid ahaa xakamaynta maskaxda, tijaabooyinka microwaveska iyo cudurrada maskaxda, horumarinta cudurrada faafa sida Ebola iyo fayrasyada la mideeyay. mid ka mid ah qoraalada sirta ah ee CIA-da waxa uu amrayaa in la wiiqo kalsoonida dadka daaha ka rogaya sirtaas, iyagoo loogu yeedhayo inay qabaan conspiracy theory ay tahay yacni wax khiyaal ah inay dadkaasi ka sheekaynayaan. WHO hay'adda caafimaadka adduunka waxay mar walba sheegtaa inay u taagan tahay badbaadada caafimaadka caalamka, laakiin waxaa jira warbixin ka soo baxday 1987 WHO la wadaagta qaramada midoobay taasoo ku talinaysa in populationka ama dadka la yareeyo. kordhinta tirada dadka ee Afrika iyo Koonfurta Ameerikana ay keeni karto xaalado deganaansho la'aan ah. kadib dawladda Mareykanka iyo hay'adda caafimaadka waxay bilaabeen olole caafimaad oo lagaga hortagayo dhalmada. tallaalada loogu dhex daray waxyaabo yareynaya taranka ama xitaa keena cudurro. tijaabooyinkii la sameeyay waxaa ka mid ah Philippine 1995 gabdhaha ayaa lagu tallaalay hormoonka HCG vaccine
taasoo keentay inuu jirku burburiyo uur kasta oo yimaada. Kenya 2014 golaha Katoliga ayaa shaaciyay in WHO ay isticmaashay talaalka booliyada oo lagu dhex daray anti-fertility agent oo ah maado dhalmada ka hortagta. 1974 Henry Kissinger ayaa qoray National Security Study-ga. qoraalkan waxa uu noqday tiirka siyaasadda dibadda ee Mareykanka ee ku wajahan xakamaynta tirada dadka dunida, waxaana lagu sheegay kororka tirada dadka Afrika iyo Asia uu khatar ku yahay helitaanka kheyraadka muhiimka ah sida saliidda, macdanta iyo biyaha. dalalkaasi waa in loo adeegsado siyaasado caafimaad si loo xakameeyo tarankooda iyada oo aan si cad loogu sheegin waxa socda. ma ahan in la laayo dad, waa in la gaaro natiijo la mid ah iyada oo dadka la ogeysiinayn. waxaa la helay xiriir toos ah oo u dhaxeeya hay'adda caafimaadka iyo CIA-da, hay'adda cuntada iyo shirkadaha daawooyinka, UN-ta iyo bangiyada. sidaas awgeed warbaahintu waxay qariyaan xogaha daawooyinka la hayo. dhakhaatiirtu isku daydana inay daafuraan waxyaabaha qarsoon waxay wajahaan digniino, cunaqabatayno iyo dilal. su'aashu waxa weeye, yaa daacad ah, yaase og wax badan? ma hay'adaha caafimaadka, ma warbaahinta, mise dadka? Cooper waxa uu dhintay 2001 isagoo aan dhammaystirin buuggiisii labaad. daawade ma ku kalsoon tahay hay'adaha caafimaadka caalamka?